shirka nabadaynta beelaha walaalaha ee Khayr Cabdi iyo Maxamed Garaad oo dhawaantan dirir ku dhex martay koonfurta gobolka Sool ayaa galay wajigii maxkamadda loogu garqaadi lahaa kaasoo ay garwadeen ka yihiin guddi culimaadudiina waxaana goobjoog ka ah isimada dhaqanka waxgaradka ergada labada beelood iyo wafdi ka socday xukuumadda Soomaaliland oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda umuuraha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo uu heliyay wasiir dawladda madaxtooyada Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed ayaa madasha ka soo jeediyay dardaaran iyo wacdi ku saabsan in la isu tanaasulo isagoona u duceeyay labadaasi beelood ee walaalaha ah wax la koobi karo ma idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim bi rabbi subhanahu wa ta'ala qofkii ximaatada ka geystay walaag ugu bedel xubbiga iyo kalgacalka qofka ay dhex mara wax la koobi karo ma wax la soo koobi karo ma waxa taasna badana sameeyay qof iimaan qalbigiisu ku yahay qof rabo ummadan inay kala bogsooto qof rabo waxaan inay go'aan qof rabo ma taqaanaayay meeshii xumaan tahay in walaag ku bedelo arrimaha inoo yaala maanta waa arrimahaas iib baa yaala dhaawac baa yaala sheegasho kala taala dhibaatooyin kala yaala laakiin intiinan waa inta la rabo inay waxaas ay walaag ku bedesho دكتور شيخ أحمد جامع إسماعيل ميرا oo gudoomiyaha guddiga nabadaynta ayaa shaaciyay inay bilaabantay wajigii maxkamadda loogu garqaadi lahaa labadaasi beelood maanta oo bisha May ay tahay 28 sanadka 2017 waxaanu bilaabaynaa maxkamaddii lagu kala garqaadiyay labada beelood ee Khayr Cabdi iyo Bahar Same halka waxa fadhiyay ergooyinkii ay soo xoreen iyagu beel waliba 3 ergey oo uqaal iyo odayaal iyo culmo bale bay soo xureen waxay diyaar u yihiin wixii dhacay inay ka taloobaan ay diyaar u yihiin wixii dadka kala galay si hufan oo turxaan la oo walaalnimo leh oo helnimo leh loo dhameeyo culmada halkan fadhida maxkamadda qaadaysay waxa fadhiya isimadii haddii bayd mahayo iyo cuqaashi oo xaajada qaybahooda ku leh waxa fadhiya dawladdii oo insha Allah ta'ala hawsha talaabo la socota ilaahay waxaanu ka barinaynaa subhanahu wa ta'ala inuu hawsha sida ugu qiimaha badan ee ugu wacan ilaahay inuu dhameystiro wasiirka wasaaradda umuuraha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa dhankiisa hadal kooban halkaasi ka soo jeediyay isagoona ugu baaqay labada beelood oo walaalaha inay ilaaliyaan wax kasta oo khalkhal gelinaya nabadayntaasi waxaanu idin sheegaynaa idin la socodsiinaynaa shirkii aanu halkan u joognay arrintii nabadaynta ee labada beelood ee halkan koonfurta Sool ku dagaalamayay heshiisiintoodii meel aad iyo aad u wanaagsan bay maraysaa marxalad wanaagsan bay soo gaadhay waxa la gaaray heerkii ay ku dhaweyd in wax la kala xukumo oo wax la kala yiraaho oo qaybihii u horeysay ee nabaddu ku xidhmaysay ayaa la galay si wanaagsan bay iyaguna uga soo qayb qaateen niyad wanaag bay muujeen yuhun wanaagsan bay muujeen iyo inay mataqaanaa nabadda diyaar u yihiin calaamaadka iyo sida ay u doodeen ama u hadleena way ka muuqataa inay ka dhab tahay intayadii hawsha u joogteena si midaysan baanu ugu dul joognaa oo uga tashanaynaa insha Allah waxaanu rajo weyn ka qabnaa inay dhaqso arrintaas u soo afjaranto oo nabadii loo xidho loo gaadho assalaamu calaykum Samiir Saciid bila Bulsha TV la sacnood
وبرخ عمر أحمد البانت قرن كتشمرية السوماليلان لا سعنود.